xabxabka ama qaro waxa uu ka mid yahay fruudka inoo soo go'a xilliga xagaaga waxaana lagu yaqaanaa dhadhan wanaagsan iyo midab qurxoon sidaa darteed dadka oo dhammi waa ay jecel yihiin waxaa ku jira faytamiino badan iyo waxyaalo kaloo muhiim u ah caafimaadka qofka bini'aadanka ahi sida uu qoro websaytka healthy qaruhu ama xabxabka faa'iidooyinka ku jira waxaa ka mid ah qaraha waxaa laga helaa maaddada la yidhahdo collagen oo ka qayb qaadata xoojinta caafimaadka jidhka way ifisaa waxayna markaasi ka ilaalisaa calaamadaha duqnimada qofka bini'aadanka ahi waxaa ku jira biyo badan waxaana hooseeya kalooriska uu leeyahay sidaa darteed waxaa laga helaa firfircooni baruurtuna waa lagu jaraa jidhka waxa uu ka ilaaliyaa cudurrada kansarka ee kala duwan sida kansarka sambabada ku dhaca kan naasaha iyo weliba kan brostatka loo yaqaano caafimaadka indhaha iyo sambabada ayuu u roon yahay nacfiga iyo faytamiinada laga maarmaanka ee caafimaadka indhaha ayuu markaasi qayb ka yahay isticmaalka xabxabka ee qofka bini'aadanka uu cuno biyaha iyo sonkorta ku jirta qaraha heerka sonkorta jidhka ayay xakameeyaan sidaa darteed bukaanka macaanka ama sonkorowga qaba waxaa lagula taliyaa inay markasta way suurtagal ay tahay inay isticmaalaan qaraha ama xabxabka haddaba ku dadaal isticmaalka qaraha ama xabxabka mar kasta oo aad heli karto